Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada channelka Wardoon Academy iyo koorsada la xiriirta luqadda Boortaqiiska. Waa casharka 8aad. Waxaanu ku saabsan yahay ama aan sharaxaynaa o presente continuo. O presente continuo. Gramática portuguesa waa casharkaanu ka tirsan yahay ama sharciga naxwaha luqadda. Khaasatan o modo verbal. Tense waxyaabaa loo yaqaan tensiga ama isbeddelka ficilada ku yimaada. O presente, passado e futuro. Qaar ka mid ah hore aan usoo arnay dhammaantii malina afar ayaan hore usoo sharaxnay. Kana waa kii shanaad. O presente continuo oo progressivo. xaadirka soconaya way macnaheeda waxyaabaha waxa lagu qeexaa wax markaas dhacaya inaad sheegto. O presente continuo oo progressivo waa loo yaqaanaa un tempo waa waqti verbal ficil waqtiyeed waaye usado loo adeegsado para indicar in la tilmaamo ama la muujiyo ações falal que estão em progresso kuwaasoo dhacaya no presente xaadirka waqtiga la joogo markaas wax dhacaya. No momento da fala waqtiga la hadlayo ele é empregado waxaa loo adeegsadaa para falar sobre situações temporárias. Para falar in laga hadlo sobre situações xaalado temporárias ku meel gaar ah. Ações sidoo kale ficilo ama afcaal continuas soconaya que estão acontecendo kaasoo markaas dhacaya. Marka laga hadlayo xilligaas aad hadlayso wax dhacaya. Presente xaadir marka la qeexayo wuxuu noqon karaa mid markaas dhacaya ama mid markasta dhaca. labadaas oo present uu kala yahay. Present indicativo ayaan hore usoo sharaxnay oo wax markasta dhaca. Aniga waan hadlaa, aniga waan shaqeeyaa, macnaha markasta wax dhaca. Simple present waa English. Kana waa present continuous. Marka o present continuo markaad adeegsanayso waa inaad ka hadlayso wax markaas dhacaya. O presente continuo progressivo é tempo verbal usado para indicar ações que estão em progresso no presente, no momento da fala. Ele é empregado para falar sobre situações temporárias, ações contínuas que estão acontecendo. Samaysankiisu marka waa sidaan. Ele, ela e você está ay qaataan está. Está iyo estou iyo estamos horaan usoo arnay verbo estar iyagoo ah oo ficil madax banaana. Laakiin hadda maanta verbo ma ahan waa auxiliary way auxiliary ama auxilio. Waxaa loola jeedaa hadda está iyo estou iyo ma la macnaynayo. Estou aqui ana halkaan joogaa. Está verbo está ficil waxay ahayd markaas ahaansho meel lagu sugan yahay oo kala. Laakiin hadda maanta ficil ahaansho ma ahan. Verbo estar ma ahan. Waa maxay ficilka weyn ay la shaqeynayaan. Estou comendo marka meeshaan ku qoranto kale estou comendo. Estado macna ma qaadanayso kaliya waxa la fasirayaa comedaas oo kale oo cunida. Estou comendo hadda wax cunaya. Marka está ama estou ama estão ama estamos hadda macna gooni taagan ma lahan. Sida markii la sharaxayay verbo estar sida ahayeen kale way ka duwan tahay. Estou aqui ana halkaan joogaa. Está markaas macnay leedahay. Estou comendo waxbaan cunaya. Está macna ma lahan kaliya waxay caawinaysaa ficilka weyn. Main verb ay la shaqeynaysaa markaas ay caawinaysaa. Marka ele, ela e você está ay u gudbaan. Eles, elas, vocês jamac markay yihiin estão. Eu estou ay qaadataa. Nós estamos. Hore usoo sharaxna qofkii verbo estar hore usoo arkay. kaliya adeegsiga ayaa kala duwan waxa hadda loo adeegsanayo markaan ficil weyn ay caawinayaan markaasna ayaga ficil madax banaan ahaa. Ele está comendo sanduíche. Ele está comendo asagoo wuxuu cunayaa sanduíche ayuu cunayaa. Hilibka iyo waxa rootiga la dhex geliyo waa sandwich. Shandulana waa loo yaqaan hore usoo sharaxnaa Angola. Marka sandwich waa sidaas. Ele está comendo asagoo wuxuu hadda cunayaa. Está comendo dhammaan presente continuo markuu yahay waxaad ku garanaysaa ficilku daas ku dhamaanaya iyo o. Estão falando, estão comendo, estão trabalhando, estão indo, estão escrevendo, estão lendo, estão destruindo, estão andando, estão caminhando. Markasta ideedaasay ku dhamaanaysaa.
any day oodaas ama any day oodaas ka dhaadiga waxaa laga yaabaa inay eeda bedelkeeda ii soo gasho mar qaar indu oo kale shto indu marka any day oo waay ay markasta ku dhamaataa marka está comendo any day oodaas waxay u dhigantaa ing oo kale englishka ing I'm going to school going taas oo kale indo waa portuguesna waa sidaas ele está comendo sanduíche uu cunayaa hadda iyuu cunayaa waay agora waay macnaha eu estou indo para a escola iskuulkan u socdaa iskuulkan aadayaa macnaha way ka duwan tahay mar dhow haddaa rabta inaad aadayso eu vou para a escola haddaa tiraa eu vou waan aadi doonaa wax yar kadib waay laakiin hadda exactly waqtigaas la joogo maahan laakiin haddaba haddii aad jid kusii jirto ama aad socoto waxaa leedahay eu estou indo para a escola qofka kusoo wacay oo kale onde estás xagee joogtaa estou indo para a escola iskuulkan usii socdaa eles estão bebendo chá eles estão bebendo chá ay cabayaan de momento hadda ay chá cabayaan eles estão bebendo chá de momento nós estamos falando no telefone agora anagu estamos falando no telefone ku hadlayna agora hadda nós estamos falando no telefone sidaan hore usoo sharnay está iyo estou iyo estão iyo estamos macnahooda ma raadinaysa hadda verbo estar ma aha hadda xilligan ee waa auxílio caawiyo waaye hadda waxay caawinayaan ficilka weyn oo ah ficladan weyn oo comer ir beber falar kuwaasa ficlada meesha ku jira marka waxay kusoo kordhinayaan any day oodaas u dambaysay kusoo kordhinayaan marka estamos la isticmaalo waa in ficilkiina doodaas ku dhamaadaa doodaas ku dhamaadaa ficilka la adeegsanayay ku xiran tahay marka present continuo marka waa sidaas ele está comendo sanduíche cunayaa hadda eu estou indo para a escola iskuulkan hadda u socdaa eles estão bebendo chá de momento chá ay cabayaan hadda nós estamos falando no telefone agora hadda ayaan telefoon ku hadlaynaa Portugiiska Yurub laga isticmaalo ama Portugal sidoo kale wadamadii ay gumeysatay sida Angola iyo Mozambique iyo lamid ah inta badan ma la isticmaalo present continuo waa jira dadku isticmaali karaan laakiin uma badna tabiicad ahaan uma badna laakiin Brazil waa arkayna aad ay Brazilian ku isticmaalaan dadka estou trabalhando waan shaqeynaya haddan shaqeynaya estou trabalhando estou falando marka aad ay Brazilian ku isticmaalaan present continuo laakiin Portugiiska laga isticmaalo Africa wadamada ay Portugal gumeysatay iyo Portugalba present continuo waa la isticmaalaa laakiin aad looma isticmaalo inta badan waxaa la isticmaalaa presente indicativo waa la isticmaalaa o presente indicativo eu falo ama waxaa la isticmaalaa futuro imediato oo mustaqbalka dhow ah meeshan kale waxaan ku sharaxaynaa comparação isbarbardhig waaye comparação waxaan isbarbardhigaynaa shanta tense ilaa hadda aan soo aragnay modus verbalka shanta oo ilaa hadda aan soo aragnay ayaan isbarbardhig ku samaynaynaa dhowr tusaale anoo ka bixinayna comparação do presente continuo oo hadda midkaan sharaxaynaa presente do indicativo oon hore usoo sharaxnay futuro presente do indicativo sidoo kale hore usoo sharaxnay futuro imediato hore usoo sharaxnay pretérito perfeito hore usoo sharaxnay shantaas waqti ee isbedel hore usoo sharaxnay presente continuo presente indicativo futuro presente indicativo futuro imediato pretérito perfeito marka presente continuo haddan soo sharaxnay waa xaadir presente indicativo wax mar kasta dhacaan ku sheegnay waan shaqeeyaa mar kasta eu trabalho anigu waan shaqeeyaa marka ma hadda saacadan kaliya inaad shaqeynayso ma eu estou trabalhando waad leedahay haddan shaqeynaya hadday hadda ka hadlayso laakiin waqti kastaba haddii aad shaqeyso você trabalha adiga ma shaqeysaa sim eu trabalho anigu waan shaqeeyaa futuro do presente do indicativo waa mustaqbal waaye dambe u noqon karaa mustaqbal dhow ma ahan xoogaa mustaqbal sii dambeeya waay eu falarei no telefone ama eu sidaas oo kale telefonan ku hadli doonaa eu falarei contigo marka futuro imediato wax mustaqbal dhow waayo wax yar kadib inaad samayso aad doonayso eu vou para a escola eu vou falar contigo eu vou ligar para ti macnaha waqti yar kadib aan kusoo wacay waa mustaqbal dhow waayo pretérito perfeito waa passado waayo ama past waayo eu falei com ele assim waan la hadlay mustaqbalkii oo kale tusaalooyin waa kuwana
shantii bay ku jiraan. Eu estou falando contigo. Aniga adigan kula hadlaya. Eu estou falando contigo. Aniga adiga ayaan kula hadlaya. Estou falando contigo. Hadda ayaan adiga kula hadlaya waay. Eu falo contigo. Adigan kula hadlaa. Waan kula hadlaa. Manaa markastaan kula hadlaa waay. Eu estou falando contigo. Adan kula hadlaya hadda. Eu falo contigo. Adigan kula hadlaa markasta kula hadlaa. Joogto waay. Eu falarei contigo. Waan kula hadli doonaa. Futuro waay markaysaa. Sida nambaradan ay u kala horeeyaan xaggana fiiri. Waa kana kan u horeeyo waa continue. Kan oo kale waa kan present indicative. Sida meeshaan nambarada ugu qoray ayay u kala horeeyaan. sida aan ugu qoray nambarada meeshan ayay isticmaalkooduna u kala horeeyaa macnaha ma jumla ama tusaalooyinka aan bixinayo sidaan ugu wareerin doonaya marka eu estou falando contigo adeen kula hadlayaa presente continuo eu falo contigo aniga markastaan kula hadlaa eu sempre falo contigo markastaan kula hadlaa presente do indicativo eu falarei contigo waan kula hadli doonaa o futuro do presente do indicativo waa mustaqbal. Eu vou falar contigo. Waxaan kadib aan kula hadlayaa futuro imediato, mustaqbalka dhow ayaa leedahay. Eu vou falar, ele vai falar, nós vamos falar, eles vão falar, horan soo aragna waxaas oo dhan. Ha. Eu vou falar contigo. Adiga ayaan kula hadli doonaa. Eu falei contigo. Aniga waan kula hadlay. Eu falei contigo. Eu falei contigo. Waan kula hadlay. Waa passado waay. Eu vou falar contigo, waan kula hadli doonaa wax kadib. Eu falarei contigo, waan kula hadli doonaa. Marka tana fog laba mustaqbal waay. Labadaba waa futuro laakiin mustaqbal fog iyo mustaqbal dhow way kala yihiin. Eu falarei contigo hadaa tiraa waan kula hadli doonaa waay. Waa waqti mustaqbalka dambe waay laakiin aan dhoweyn waay. Eu vou falar contigo hadaa tiraa laakiin waxay muujinaysaa mustaqbal dhow inay tahay. Salaada mashquula too kale qofka markaad mashquul ka baxdo kala rabta inaad qofkii la hadasho. Eu vou falar contigo, eu vou ligar para ti, ku soo wacaya leeda. Eu ligarei para ti hadeen. Sababta waxay muujinaysaa mustaqbal dambe inay tahay. Você está falando comigo? Você está falando comigo? Aniga la hadlaysaa. Você está falando comigo? Aniga hadda la hadlaysaa. Você fala comigo? Adiga waad la hadlaysaa markasta. Comigo marka waa sidaas. Contigo waa qofka markaad la hadlayso la jirkaaga. With you, with you iyo with me. Marka contigo waa sidaas. La jirkaaga adiga. Comigo aniga. Fala comigo aniga la hadal. Marka você está falando comigo? Aniga la hadlaysaa hadda. Você fala comigo? Aniga markasta la hadashaa. Você falará comigo? Aniga la hadli doontaa. Você vai falar comigo? Aniga la hadli doontaa mar dhow. Você falou comigo? Aniga la hadashay. Waa shantii aan kor ku soo xusnay oo jumlada dheeraad ka sii bixinayo. Nós estamos falando com ele. Anagu asaga ayaan la hadlaynaa. Nós estamos falando com ele. Asagan hadda la hadlaynaa. Nós falamos com ele. Asaga ayaan markasta la hadalnaa. Waxa fiiro gooniya u baahan tahay inaad ogaato ama xusid mudan. Nós falamos com ele. Nós falamos com ele. Laba meel ay ku jirtaa ujeeda passado iyo presente isma bedesho marka falata. Falamos e falamos. Nós markay tahay falar presente iyo passado qaab dhismeedkoodu waa isla mid. Waxa lagu kala saari karaa marka nós falamos com ele. Nós sempre falamos com ele. Marka soo la hadalnaa. Ama nós falamos com ele ontem. Waxa wanaagsan marka adverbio do tempo inaad isticmaasho. Ay falkaabaha waqtiga inaad isticmaashaa wanaagsan. Waa sida hoje, ontem e agora. Waa la midka. Nós falamos com ele. Nós falaremos com ele. Não wala hadli doonaa. Falaremos com ele. Wala hadli doonaa. Nós vamos falar com ele. Waxaan kadib ayaan la hadlaynaa. Nós falamos com ele. Asagaan la hadalnay. Eles estão falando conosco. Markas tal ficlan isticmaalay sidaan ugu wareerin ay ku fududaatal ficlan falar ficilkaas markas isticmaalaya. Eles estão falando conosco. Anagayna la hadlayaan conosco. Ficilada meeshan ereyada ku jira. Contigo, comigo, conosco. Com ele, com eles, saas waay. La jirkooda ayaga waay marka. Eles estão falando conosco. Anagayna la hadlayaan.
Eles falam conosco, anagay nala hadlaan. Eles falarão conosco, anagay nala hadli doonaan. Eles vão falar conosco, anagay wax yar kadib nala hadli doonaan. Eles falaram conosco, anagay nala hadleen. Anagay nala hadleen. Waa futuro. Futuro waxa waaye marka waxa ula jeedaa passado. Pretérito perfeito ama passado. Insha Allah ficladan qaab dhismeedada isbedelkan waan sii sharaxi doonaa 12 gaarsiin doonaa insha Allah. Marka aad u fudud casharku marka aan dul mariyaa. O presente contínuo ou progressivo é um tempo verbal usado para indicar ações que estão em progresso no presente. No momento da fala, ele é empregado para falar sobre situações temporárias, ações contínuas que estão acontecendo. Ele, ela, você está. Eu estou. Eles, elas, vocês estão. Nós estamos. Ele está comendo um sanduíche. Eu estou indo para a escola. Eles estão bebendo chá de momento. Nós estamos falando no telefone agora. Nós estamos falando no telefone agora. Agora nós estamos falando no telefone. Comparação do presente contínuo, presente indicativo, futuro presente indicativo, futuro imediato, pretérito perfeito. Eu estou falando contigo. Eu falo contigo. Eu falarei contigo. Eu vou falar contigo. Eu falei contigo. Você está falando comigo. Você fala comigo. Você falará comigo. Você vai falar comigo. Você falou comigo. Nós estamos falando com ele. Nós falamos com ele. Nós falaremos com ele. Nós vamos falar com ele. Nós falamos com ele. Eles estão falando conosco. Eles falam conosco. Eles falarão conosco. Eles vão falar conosco. Eles falaram conosco. aad u fudud yahay isbardhigan muraajaco way qaybtan dambe qaybta horena waa waxaan ku sharaxaynay present continuous aad iyo aad u mahadsantihiin aan fahanteen ayaan jeclahay cashiradan waa muhiim qofka ilaa halkan soo gaaray levelkan cashirka 8aad waxaan qiyaasayaa inuu level fiican soo gaaray sababtoo waxyaabo badan ayaan soo sharaxnay cashirkii aad fahmi weyso ku celcel dhowr jeer maadaama YouTube ay ku jiraan wixii haddaad fahmi weyso waad ku ceshan kartaa waxyaabo badan ayaan aad iyo aad u soo sharaxnay dhabaantii waxaan ka soo hadalnay sida dhakhtar loola hadlo sida booliska squadrada loo aado dacwo loo gudbiyo kale qof markaad isku dhacdiin oo kale sida booliska economic dhaqaalaha loola hadlo sida suuqa wax looga iibsado qudaar iyo wixii la mid ah sida bacadlaha dhar looga soo iibsado waxaan soo aragnay oo kale sida loo kireystaan soo aragnay taxi sida loo kireysto hotel qol loo kireystaan soo aragnay sida dhakhtarka ilkaha loola hadlaan soo aragnay sida receptionka qaybta receptionka soo dhaweynta loola hadlaan soo aragnay sida maqaayad soo kale cunto looga iibsado sida airportka loo tagay loola hadlay immigrationka iyo waaxda customkan soo aragnay waxyaabaha aan ka soo hadalna dhamaantii aad ay u badan yihiin meeshan kuma soo koobi karo jumlada iyaga oo aan soo aragnay waxaan sidoo kale soo aragnay ilaa hadda sida meeshan bay idinka muuqatay 5 waqti oo kala duwan oo aad qeexi karto wax kasta inaad xaadir ka dhigto lama rabo dadka intooda badan qofkii sharciga luqadda barta marka laga reebo xaadirka waxyaabaha ay bartaan eu falo intaas laga yaqaanba eu falei eu falarei eu vou falar eu irei falar waxyaabahaas oo dhan waa waxyaaba loo baahan yahay in qofku waxaa la doonayaa inuu luqadiisa markasta inuu horumar dheeraad inuu sii gaaro sanad kasta kugu sii darsamo ama bila kasta inaad isbedel dareentaan rabo 20 sano iyo 10 iyo dhowr sano wadanaad joogto aad weli present aad ku dhagan tahay lama rabo waa waxay kugu noqonaysaa taas oo kale arrin ceeba wadanka kale meeqa sanaad joogtaa marka lagu yiraahdo 10 sano 20 aan jooga lagu yiraahdo Portugalskaaguna uu la mid yahay qof hadda yimid oo kale waa maskax laan waayo qof waxa soo dhibaayo waa dadaal yaraan isla weynankuna kama maqna meesha dad badan waxa lagu garan lahayaa wax la idin ka saxo wax iska saxa balkale waxay badiidayaan qof weyn inay ku leeyahay marka waxas ma baahna waa qana waxan ku shaqeysto
maalin kastana waxa lagu qoslay ugu hadlay adiga xitaa qof Soomaaliga bartay hadda arki lahayd oo jabinay waad ku qoslaysaa ruuxa Soomaali ma yaqaan leedahay aniga ayaa saas sameynaysa aniga ayaa saas aniga waxay tiri asaa qof inuu iska hadla raba asaga aniga waxay tiri sidoo qof maqan oo kale ka hadlay ka war qof Soomaali ma yaqaan luqadda ugu dheela leedahay adiga laakiin luqad Islaamiyada sida ugu dheelaysa maalin kasta Soomaalid ilaa inaad iska saxdo luqadda sharcigeedii nidaamkeedii bartamaane adigana sida lagu qoslaya la socod waliba ceeb way marka 20 sano iyo 15 sano ay joogto wadankii aad aniga tiri iyo اشتاف فلاد أد كويسو وعيب آدي هذا ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته